سورج وين في عنده هدي ماشان أنكو أركي waad faraxsantahay maanta ها أديات qalbi miyaad soo iibsatay mase qalbigaad soo burburisay ii sheeg bal معناها ماكو فاهمين waan ogahay mar walbaad faraxsantahay adiga inaad wax soo qarbuday وجهك ما في عنا كرسيك أنا كفردها ما حد يديه ربطها maanta kadibna waxaan jeclahay kursigan inaan ku dul fadhiyo ماكو فاهمين su'aal jawaabteeda waad heli doontaa laakiin dulqaad oo kaliya yeelo intaan sheekadan kaaga sheegayo sheeko muhiim ayaan rabaa inaan kuu sheego waxaa jiri jiray wiil heer tabareed ah oo cidiska faqiirina ka dhashay oo aan shaqaysan oo baagamundo ah waxaa kaloo jiri jiray gabar kibireeya oo cid lacag la ka dhalatay oo aad iyo aad u halaysan waa ay kulmeen gabadhi wiilkii waa ay iibsatay tilaabo walba lacag ayay hordhigi jirtay lacag ayay ku soo jiidan jirtay ilaa heer afka ay ugu cubto سورج iga raalli noqo sheekada xaggee maraysay haa lacag ayaan ka sheekeynaya gabadhii aan kaaga sheekeynaya wiilkii waxay u iibsatay inay hub ka dhigato cadowgeeda oo keliya ay doonaysa inay ku baabi'iso asagana daacadiyo iska ahaa ayadana mar walba amarkeeda oo keliya ayuu ku shaqaynayay heer waxay gaartay farta ay amar uga bixiso farta ma fahamta hadalkayga cadowtinimo intaa ka weyn miyaa jirto xataa dareenka bini'aadanimada walaaltinimada intaba gabadha agteeda waxba kama ahayn danteeda oo keliya ayay fiirsanaysay danaysta ayay ahayd ka warran bal xiriirka walaaltinimo kan saaxiibtinimo intaba ma aysan dhowri jirin agteeda qiimaba kama lahayn wiilka isticmaalaysana way ogeyd inuu aad iyo aad u jecel yahay indhahiisa xataa inuu ka jecel yahay laakiin jacaylka agteeda waxba kama aamus waa lagu xanuujinayaa gabadha teeda oo keliya ayaa u muuqatay haa waan waasha aniga waxaan noo waashay inaan adiga runta ku dhadhansiiyo runta kuu sheego yaay waale laakiin ma taqaanaa adiga ayaa waashay adiga naftirkaada noloshan cusub ee igu dhaliya ma taqaanaa adiga ayaa igu dhalisay anigoo meel iska jooga haddii timid noloshayda dardargelisay jacaylkayga dardargelisay kadibna maxaad samaysay ma taqaanaa noloshayda idil ayaad baabiisay shalay liijaanka adiga gacantaada ayuu ku jiray faraskan aniga ayuu ahaa laakiin maanta liijaanka gacantayda ayuu soo galay adigaana faras noqonaysid وريا waxaan ku celinayaa meeshii hadda ka hor aan ka soo qaaday no fastidiisa sahil hadii kale maxuga ku xanuunay waa daalaysa maxay meesha adiga kantu waa meel fog xasuuso abaa nolosha si dhan hal saxiix ayaa baabiyay adigana soo xasuuso saxiixaas aniga digu soo wareejis nasiib ayad balada dad walax fiiskiga dhex taagan tahay ku burin khiyaanada ayaa tahay khiyaanadii aan ka bartay adiga soo ma bari khiyaano waxay taagaan بوليس كان يقول بوليس أول شيء باق فقط I don't want to fuck من فضلا حفيزك هاي قفدولين محكمة ذول بحبس ولا بل بتكتب وتقولوا جوي يسوي كلية ما حيل العك فرق بدن يعني هسه هل وده يا واحد بكوجا كلام وأنت تقولي كرتا هدي أدونيس أنا كأروسي أديك مو على تاني هدايم كل شيء قلنا أنا واش هذيك وعم فهمت تدميع نو واحد بكفل وحلقة بعتها هذا تقول كلفتنا بريم يا مال أنت أروس كاني قصود ديارنا يكودي xilligan ku waxayaan lagu weyn adag mid kale dhaqan iyo raalinimo ka mar rabay libis fiican maalinta arooska soo gasho out hadana banaanka aad fadlan